walaashin xamra maxay idiin haysaa weye maanta waxaa weeye gabar ayaa la baxnaaninayaa gabar yar oo cunto xun oo calool adag calool dhagax oo dhan ha ka faa'iidaystaan welcome soo dhawaada waa lowskaas waa almondkana waa lows kale waa cashew kana waxaa la dhahaa walnut waa dates ama timir adiga 7 xabo 5 xabo qof wuxuu rabo waa raisin waa sabiib intaas iyo waxaa la isku darayaa caano organic ah reer organic dadka organic jecel kusoo dhawaada all waa organic waxaa way caanahan kululeynayaa markaan kululeeyo ayaan ku dari doonaa hadhow ku shiidi doonaa soo dhawaada caanaha noo kululaanaya fardiir noo noqonaya waxaan oo dhan waxaa laga helaa vitamins waxay leeyihiin healthy benefit ayay leeyihiin dadka veganka ah caanaha almondka ah ayay cabi karaan waxay ka heli karaan caanaha caadiga ah waxa laga helo waa dadka lactose-ka ah oo veganka caanaha waxay isticmaali karaan dhirta sida lowska oo kale iyo dhar badan oo kale ayaa jira sooya xataa caanihiisa dad cabaa jiro marka waxaan caloosha adag ayay u fiican yihiin waxay u fiican yihiin maxaa la yiraahdaa isheeg dadka caloosha adag ee calool dhagaxa la yiraahdo ama ilmaha cuntada xun fitamiinaad badanna way ku jiraan oo ay ka helayaan jirkooda anfac ayaa ugu jira qof weyn iyo qof yarba qofkii rabo cidna ma diidayaan alaabtaan ma diidaysa cidna way cabi karaan way ku shiidan karaan caanaha caloosha way ku bixin karaan Soomaaliya markaan yaraan sibir ayaa nala siin jiray sibir yaa la soo sii reer Muqdisho hadaa sibir ayaa nala siin jiray sibir caana lagu daray ayaa la siin dad baa xataa macsaro loogu sii dari jiray waaridka way nagu qasbi jireen jimco kasta waa la isqaras faali jiray ama la isqaras bixin jiray bas aw taqaano si maxaan ku raahdaa abateedku uu ugu furmo caruurta xataa dadka waaweyn abateedku waa ka xirmaa haday caloosha dhagax noqoto cudur oo dhanna waa caloosha waad ogtihiin calooshaada haddii aanad qashin saarmin oo maxaan ku raahdaa waxba kaa imaanin khatarteeda leedahay xitaa dad qaar waxaad arkaysaa ku dhahay dhinacyada ay xanuunaya waxaas waa saxaro adkaatay dadka caloosha adag waxay moodayaan in kaliyaha laga hayo dadka qaarkood lagama hayo waxaa ku adkaaday saxaro oo ku guntantay oo soo bixi weysay because dhagax bay noqotay caruurta qaar ayaa Soomaaliya waxaan arki jirnay saalo sidii arigii oo kale saalo xaara ma fiicna caloosha waa heerkaas gaartay it's not good marka waxaa weeye in caruurta la qarasfaalo dadka waaweyn isqaras bixiyaan all waxaa ugu jira caafimaad iyo healthy alaabtan healthy ayaa ku jira vitamins badan ayaa ku jira waxay u fiican tahay alaabtan xitaa glowing maxaan ku dhahaa maraq maqaarka ayaa glowing ku samaynayo maqaar cusub rashaan midab cusub ayaa soo baxaya alaabtan qaarkeed ay ku jirta maskaxda ay u fiican yihiin xusuusta alaabtan lowsiyada benefit badan ayay leeyihiin oo aan la soo koobi karin runtii halkan aanan ku soo koobi karin calcium ayay leeyihiin wax badan marka ku soo dhawaada intaan ku wada shubanayaa waan isku dardarayaa garbisaar weynaa taa la wataa raal ahaada ujeedaan waa aragtaan waa la isku dardaray caanahan soo qaadanayaa way ii kululaadeen xoogaa waan daminaa dabka waa ku shubanayaa aan isu soo noqona cabaar kadib marka waxaan rabaa inaan ku shubo hadda uu noo yara qaboobay waxaan ku shubayaa blenderka waayo wax kulul blenderka laguma shubo that's why bismillah hey
markaa caanaha qaybtii hartay ayaan ku shubanaynaa markaa set waan isku shiidi doonaa shiidmatay hey kana ka qaadaya naacimay noqotay mujaadiin hey hal galaas oo alaabtaan haddaa cabtid caadi ma ahnan ku dhahay yaa not caadi healthy ما شاء الله هنا قفل الصوت بالعادة healthy أنكو دهواتا أرات يا لابتو بقشة دوق أما سيريس بكعب يا أرات عادي معها وكاسا كسو دوادا channel كيجا كسو دوادا وح healthy له عافيماد له فيتامينز بدن كجرو caloosha u fiican organic ah wax natural ah laga sameeyay maxaa loo dhahaa ishag fiber leh oo caloosha u fiican waxyaabo badan oo vitamin ay ku jiraan ka faa'iideysi wacan ilmaha la siiyo dadka waaweyn ha cabaan qof uu diidaya ma laha cid kasta way cabi kartaa age kasta share comment subscribe thumb up please